gacanta kor u taag si fiican u taag maxamed xaashi muumin cabdulqaadir axmed umal maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka Puntland ayaa soo gabagabaysay dacwad iyo eedeymo ka dhana kooxaha hubaysan oo waqooyiga magaalada Gaalkacyo ka geysan jiray dilal iyo waliba falal qarxiya. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka Puntland gobolada Cayn iyo Mudug ayaa maanta soo gabagabaysay dacwad iyo eedeymo ka dhana kooxaha hubaysan oo ciidamada qalabka sida ee maamulka Puntland ay ku eedeeyeen in ay dilal ka geysteen waqooyiga magaalada Gaalkacyo gaar ahaan xaafadaha Garsoor, Israac iyo waliba xaafado kale oo ka tirsan magaalada Gaalkacyo waqooyiga ee maamulka Puntland. maanta ayaa la horkeenay ku dhawaad 20 eedeysane oo ku eedeysan falalkaasi. gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee ciidamada qalabka sida ee maamulka Puntland Kennedy Isaaq ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda isagoo oo sheegay in ay dil toogasho ku xukumeen 15 eedeysane oo ku eedeysan in ay xasuuq ka geysteen maamulka Puntland waqooyigiisa oo ay dileen haldoorkii magaalada Gaalkacyo. falal soo bilowday 2008 ilaa ay haddana socday ayay maamulka Puntland ku eedeeyeen shabakadaasi magaalada Gaalkacyo joogi jirtay. raggan la eedeeyay ayaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo ka ahaa caan iyaga oo dhisi jiray guryaha iyo waliba kawaana hilibka iyo ganacsi kale ku lahaa magaalada Gaalkacyo waqooyigeeda. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolada Cayn iyo Mudug ayaa waxa uu sheegay in ay soo afjareen shabakad soo hadalka u dhigay shabakad dilal ka wada jirtay magaalada Gaalkacyo ilaa 2008 waa sidoo hadalka u dhigay. gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Cabdiladiif Sanyare ayaa horey ugu dhawaaqay inay dhamaatay dilalkii loo geysan jiray haldoorka magaalada Gaalkacyo sida uu sheegay. raggan idin muuqda oo horjoogahooda ugu weyn uu ahaa Jeerin lagu magacaabo ayay maxkamaddu oo gaaraya 15 eedeysane ayay ku xukuntay dil toogasho iyada oo dhowr ka midana xabsi daayin lagu xukumay sida ay ku dhawaaqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ee gobolada Cayn iyo Mudug. waxaa magaalada Gaalkacyo waqooyigeeda ka jiray waa shabakad isku xidhan kuwaas oo dilal ka geysan jiray magaalada Gaalkacyo iyaga oo haldoorkii magaalada Gaalkacyo dilay. maamulka Puntland ayaa horey ugu dhawaaqay inay dhamaatay falalkii sida tooska loo geysan jiray iyo waliba qaraxyadii dadka lagu dilay jiray sida ay sheegeen maamulka Puntland. waxayna sheegeen in lagu fulin doono maalmahan soo socda dilalkii waa dadkii ay dileen iyada oo fagaarad toos lagu tagan doono sida ay sheegtay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka Puntland gobolada Cayn iyo Mudug sida ay ku dhawaaqday. waxaana tan ay soo afjaraysaa qaraxyadii iyo waliba dilalkii ka dhici jiray magaalada Gaalkacyo waqooyigeeda oo muddo dhowr iyo 10 sano